maamulada aanu deriska lahayn waa wargaarsiin waanu isku filannahay soo maaha waanu isku filannahay waxaanu qabsanaynaa xafiisyadeenna waxaanu samaysanaynaa gobolladeenna waxaanu samaysan doonnaa degmooyinkeenna waxaanu gaari doonnaa sida maamulada kale ay u gaareen horumar xaq baan u leenahay cid naga hor istaagi kartahay ma jirto waxa aad tihiin xooggii shacabka Xiriirland waxaad maanta u taagan tihiin iyo waxaad berri u istaagi doontaan waxaad ka shaqayn doontaan amniga waxaad ka shaqayn doontaan horumarka waxaad ka shaqayn doontaan dhismaha wax kasta oo bini'aadanka Xiriirland iyo guud ahaan Soomaaliya u baahan tahay waa inaan gacanta la wada galnaa anigu waa idin dhex taagnahay habeen iyo maalin waa idinla jooga haddii alla idmo halkaas baanu insha Allah ka bilaabi doonaa xarunta Xiriirland waxay noqon doontaa gobolka Mudug Gaalkacyo waanu guuri doonaa insha Allah mardhow markaan magaalada dhammaysano dhanka kalena ciidamada iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee degmada Galdogob ayaa markaasi hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyay Yuusuf Maxamed Warsame oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha aan wali la dhaarin ee maamulka Xiriirland marka uu horeysa 14 boqolkaad ku soo dhaweynaya aniga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Cismaan Cabdi ilweyn baa la yiraahdaa waa bareera mahmadunto madaxweynaha Xiriirland oo hadda meesha taaganna boqol baa soo dhaweynayna waxaanu leenahay midda maanta joogta oo meesha ka dhacaysa waxa weeye ka dhacu nafdawa kureeyo uga rayso waa hirgashay waa hirgalaysa dadka meesha joogaana way gudoomiye guurtiga 12 sano haystay baa aad banaana wax layga weydiiyaa ogolaaday waa raacday waa la ogolaaday madaxweynaha boqol badbaadsaday aad iyo aad baa umaatay assalaamu calaykum waxaan ku salaamayaa xafladda salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha Xiriirland aad iyo aad baan soo wada shaqaynaynaa shacabkan waxaan leenahay taageero iyo madaxweynaheena iyo horumarkiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh